socdaalkan ay ku soo gaadheen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal Professor Ali Khaliif Galeed oo ay weheliyaan xubno kamid ah golaha wasiirada xukuumadda Somaliland ayaa saaka soo gaadhay magaalada Boorama iyagoo ugu horeyntiina booqday xarunta jaamacadda Amuud halkaasoo dugsigiisii sare Ali Khaliif Galeed uu ka bilaabay waxbarashada. Professor Ali Khaliif Galeed ayaa wuxuu guud ahaan indhaha u soo saaray xarumaha ay ka kooban tahay jaamacaddaasi Amuud isagoo sidoo kalena si gaar ah u soo kormeeray goobihii waxbarashada secondary-ga uu ka bilaabay ee jaamacadda Amuud. Professor Ali Khaliif Galeed ayaa wuxuu si weyn uga marakacay horumarka baaxadda leh ay ku talaabsatay jaamacadda Amuud isagoo markaasina isbarbar dhigay waqtigii secondary ahayd jaamacadda Amuud iyo waqtigan oo ay tahay jaamacadda heer caalami ah. Professor Ali Khaliif Galeed iyo golihii wasiirada ay ku wehelinayay socdaalka ay ku soo gaadheen magaaladaasi Boorama ayaa intaasi kadib waxay u kictimeen dhinacaasi hotelka Sow halkaasoo ay degi doonaan muddada kooban ay joogaan magaalada Boorama. Professor Saleebaan Axmed Guuleed iyo xogayaha gobolka Awdal Mustafa Duudo iyagu warbaahinta la hadlay ayaa waxay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyeen ujeedada socdaalka uu ku soo gaadhay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Professor Ali Khaliif Galeed iyo golaha wasiirada ee socdaalkiisa ku wehelinaya waxayna ku tilmaameen wadarkaysan oo Ali Khaliif baa jooga. Ali Khaliif Galeed ayaa jaamacadda Amuud maanta soo booqday. Alina Boorama imika ugu horeysay horena uu iman jiray 58 halkan uu ka galay dugsigii sare Amuud secondary school oran jiray dugsigii sare Amuud ayuu ka galay. حاجة ده الشيء ما سنة بيجو هالرئي وصاحبنا وأنا حين مجالات أنا قاعد بكرة يقارناه يرى تاريخ أنا دي كدري بدل كان هروا على خليفة مقعد حي وبرجع أنت ترتن لوج عليه الله نعم عبد حسن بوني مركو لما يستري على خليفة مقعد حي علينا هل كانوا كجلس ديدي كنتم كين يسقوا قلبنا حين مركز دم الشيخ للنوري تيو شيخنا يسقوا قلبنا نقولنا يسقى أقل كحاجة نحكي إمك إنجنير وحفيز كه هي كود تيري أنا فومنا يسقى فومتوا شيخنا فبراير اللي حدن كي أيام النوري تي أفر بلود قبني بلا كهر ما له حدث كان دعوانا اللي يرتني هرتشوجين بدل سوق يعني وقت كه وبيشوا ديري راي ودع دير هاين مركا هذه أدبر سود دوينا على سونا دوينا نوع سكول كيسي وكبل عبي دكسي تعليم تسرع دكسي كسرع إلى قلبتي إن اللي تشوف قلبت أنا كلية عافمات أيو صوب وقال أنتِ نهلك تشوف تاي ما كرتاي مركا ده أنت أصلا دي شيء يعني كل أنا قاعد يوم السجود قبل خا واحد فرحنا ما تيجي مسوق على السياسي جوينا بعد ذيك بروفيسور منتقنا على خليف قليل وصوب وقضي جامعة عمود ما يمن إشيو سياسية لكن كل يوم صوب وقضي جامعة عمود مجال بورما وكنت منتقنا جامعة عمود وآدي الغفر حيمانت مفروض أحمري سجى بروفيسورك سوف نعسول وين إن وفتي فيصل على ورابة تقنا فيصل على ورابة يوميها حسبي وعد كل يلا عاود شو قدونا وهذا القارب يسافر دونا هدول هي قدروا si kastaba arrintu haatee socdaalkan uu ku soo gaadhay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal Professor Ali Khaliif Galeed ayaa waxa la sheegay inuu qaadan doono muddo hal maalmood ah iyadoo ay noqonayso Professor Ali Khaliif Galeed socdaalkiisii koobaad uu ku yimaado magaalada Boorama taniyo inta wada hadalada ay u furmeen maamulka Khaatumo iyo Somaliland. Maxamed Xasan Shabir Somali News magaalada Boorama.